Bismillahi raxmaani raxiim. Waxaynu haysanaa su-aashan baynu halka ku haysanaa. Waxaana nala weydiiyey angalka inaynu soo saarno. Waxaana nala siiyey sawirkana nala siiyey. Sawirkani wuxuu sheegayaa in laba line ee parallel ah ee xagla ku dul samaysmeen. Labada line ee parallelka ana waa labada line. Xariiqdan labada xariiqood waa parallel. Waxaana lala ku bixiyey midna G midna H baa nala ku bixiyey. Marka waxaana loo diray m na xaggaasay ku taalaa. Marka si aan u soo saarto waxaa laga baahan yahay in aan inta ka dhex shaqeeyo. Intaana waxay igu samaysmeen straight line bay igu samaysmeen. Straight line angaliskuna waxay isku buuxin jireen 180 isu geyntoodu. Haddaba si aan u soo saarto kuwan haddaan isu geeyo ma soo saaran karo, waayo waxay ka kooban yihiin laba variable, midna n yahay midna m yahay. Marka laba variable haddii ay noqotona wixii equation bay iga noqonaysaa. Marka waxaan rabaa inaan soo saarto inaan soo saarto baan rabaa. Si aan u soo saarto marka hore waxaan soo saaranayaa n-tan soo saaranaya. Qiimaha n leedahay haddaan soo saarto m-tuna way ii fududaanaysaa. Marka waxaan ka faa'iideysanayaa parallel line maadaama ay yihiin waxa kan labadaas. Waxaan ka faa'iideysanayaa labadan angle ee halka ku yaala 4n-ta iyo n-tan iyo 80-kan way isla egyihiin sabab marka bay isu leekaadeen. Maadaama wixii laba line yihiin oo parallel ah, labada angle oo aan isu geeyey iyo 80-kan labadan angle oo aan isu geeyey iyo 80-kan way isla egyihiin maadaama ay yihiin corresponding angles. Xagalna ay dibadda ku samaysmatay, xagalna ay gudaha ku samaysmatay waa corresponding angles. Corresponding angleskuna waxay ahaayeen kuwo equal oo isla eg. Sidaa daraaddeed marka waxaan samaynayaa keliyata waan isu geynayaa 4n oo aan u geeyey n baan waxaan la ekaysiinayaa 80-kan aan la ekaysiinayaa. Marka waxaan sameeyey 4kan iyo n-tan waa isu geeyey maadaama ay yihiin like times ay yihiin oo like timeskana way la isu geyn jiray wasle like timeska. Marka waa 5n. 5n-na waxay leegtahay 80. Marka dhinac walba waxay u qaybinaysaa 5n baa igu qaybinaysaa dhinac walba. Marka haddaan 5 u qaybiyo n waxay leegtahay 16 bay leegtahay. Marka qiimihii n waa soo saartay. Halakan marka 4n bay ahayd soo maaha. Afarun baan waxaan ku dhufanayaa n baan ku dhufanayaa. n-tan horaanba waa haystaa oo 16 bay leegtahay. 2ga kanna n baan ku dhufanaya. 2gan haddaan n ku dhufto waa 32. n-tan waa 16. Tana waxay noqonaysaa 60 iyo waxay noqonaysaa 4. Sidaa daraaddeed marka haddana waxaan samaynayaa anigoo intii tabti aan isticmaalayo. Haddaba anigoo ka sii faa'iideysanaya haddana labadii line ee parallelka ah 2n-kan iyo m-tan iyo 80-kan xagasha ah waxay isku yihiin consecutive angles maadaama wixii laba line oo parallel yihiin. Marka consecutive angles wax kale ma waa xaglaha isku buuxiya 180 markii la isu geeyo. Labada tan 2n iyo m-tan iyo 80-kan marka aan isu geeyo baa wax isku buuxinayaan 180 degree. Haddaba aynu soo qaadano iyada laftirkeeda si aynu noogu fududaato. Sidaa daraaddeed marka maadaama ay yihiin wixii consecutive angles ay yihiin. Consecutive angle-kuna waa xaglaha isku buuxiya 180-ka. Waxaan samaynayaa waa isu wada geenayaa waxaan la ekaysiinayaa 180 baan la ekaysiinayaa. Marka 2n haddii aan u geeyo m oo aan u geeyo 80 waxay leegtahay 180 bay leegtahay. Sidaa daraaddeed marka labaan waxaan ku dhufanayaa 16 maadaama aan n soo helay. Marka laba haddaan 16 ku dhufto oo aan u geeyo m oo aan isu geeyo 80 waxay leegtahay 180. Marka labadan isku dhufanaya waa 32 m-tana sideeda igu soo qaad. Marka 80-kan iyo 32da haddaan isu geeyo waa 112 waa ka jaraya marka 180-kii. Marka ugu dambeyn m waxay soo baxaysaa 68. Marka jawaabtu waa C.